wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo taliyayaasha ciidanka xoogga waxaana wax laga weydiin doonaa tacadidii ugu dambeeyay ciidanka militariga Soomaaliya ay ka geysteen magaalada Muqdisho sidoo kale guddiga difaaca ayaa wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiisha ciidanka waxay wax ka weydiin doonaan dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee loo geystay deeqa daahir oo ahayd ardayad 9 jir ah iyo falkii lagu dilay wiilkii dhalinyarada ahaa ee lagu magacaabay jiray Dayax Iimaan sidoo kale guddiga difaaca ayaa inta badan su'aalaha ay wax ka weydiin doonaan wasiirka gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ku soo laalaabanaya magaalada Muqdisho oo inta badan dad shacab ah loo geysanayay xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ah xogayaha guddiga difaaca golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in maanta xildhibaanada golaha shacabka gaar ahaan guddiga difaaca baarlamaanka golaha shacabka ay su'aalo adag ay ka weydiin doonaan arrimaha ku saabsan dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho.